munaasabad siyaarsaraha loo soo agaasimay oo loo sameeyay mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa ka qabsoontay habeennimadii xalay galbeedka magaalada London. munaasabadaas oo sida la sheegay ay soo qaban qaabiyeen haweenka xisbigaasi ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha jahliyadda reer Soomaaliland ee kala duwan ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska. waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii loo sameeyay munaasabadani iyo madax iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay xafladaasi. Jamaal Cali Xuseen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ayaan darro tahay inay maanta wada tartamaan Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay horey u soo wada tartameen Faysal Cali Waraabe oo uu sheegay inuu ka da'yar yahay madaxweynaha haatan talada haya. maantana wada arkaysaano Silaanyo oo da'diisa ma sha Allah waa ka musabix ku haysta wali Faysal Cali Waraabe boqol jeer muu dabaalan karaya isagu haddana wali waxa weeyaan vision nin aragti dheer leh oo doonaya xisbi inuu jiro boqolaal sanadood weeyaan xisbi inuu balaariyo dhalinyaro cusub keeno oo siyaasadda ku soo daro annaga waa odayaashayadii waanan u mahadnaqaynaa waanan ku ammaanan yahay taasi waa mid taariikhda ugu jirto cidina aan ka qaadi karin. Faysal Cali Waraabe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wadooyin waaweyn oo la dhiso ama se la ballan qaado ay ka wanaagsanaan lahayd mashiinada yaala Hargeysa oo la dayactiro iyo Hargeysa oo yeelata biyo ku filan. magaalada Hargeysa 2 jeer biyo ma leh $140 baan ka bixiyaa biyaha waana keliya iyo 4 shaqaale ah dadka walaalka waxa soo gala maogta tacliintu wada lacag وبيسي كمان كشيكينيا يعني هدان بناء عشورته مثلا عشورته وحلا عشورة إسلامها بعض كفرية إن ضلالات لهن وان لو قيليا جوسوس كذا عوام كويري شاهد علي جوري وهالكاسي كهذي أيها يسقون وحى وشيء إن حكومة هاتن تلذا هيسا ذاتك وعدي وجهيلي ولي دولة دي هره ما أنت وحى كهيسا أنا يشرين أنتوا هرمحوا ما يستو ayaa darkii ilaa xalay laga shaqeynayay wixii loo soo xidhay jeeniga ku dhufataayo way afgambida dabeedna way daataan biyihii dabeed ninkii gunta ku jiray baa heesa wuxuu yiraahdaa darbi caga weyn waa wax daqono darka loo xidho daysan maysee way iska dumisaa marna loogama fadhiin inay ka darayaal noqdaan waynu is ognahay reer kulmiyow si fiican baynu is ognahay waxa ku riyoonayeen maaha koloyaguna halkaasi ka hadlay haweenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waxaana hadaladoodii kamid ahaa malaha ee sida gaarka ah looga qayb qaatay soo dhaweynta madaxda sharafta leh ee aanu aad iyo aad u sugaynay waxa weeyaan musharaxa oo anigu aan u baaqaanaba waxa weeyaan musharaxii ilaahay ummadda Soomaaliland sanadkan ku badbaadinayay iyo gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo aaban uu la baxnay Abubakar Sadiq oo ninka cadaaliga ah ee maanta Soomaaliland u taagan ee xukunkiisii u huraya علي محمد يوسف أنا قناة علي بيرية هذا الكيس ما كان مقلو وأنا كدير سنة وأنا ككلية ما تسومالي لان رنت كشجع وجوهم بلييننا أما أنه أدو فرحسنا يهدانو نهاي هوينك حسب قدرية كي عدالة ده أعود ما ده حدا يدي شرفت بدني وعاو هالكن سكوت تيمين مشرح مدحوينها جمال علي حسين iyo gudoomiyaha xisbiga daryeelka cadaaladda injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo la yiraahdo Cali Guray oo nabi ka bixinay Cali Ingiriis Maxamed Tariq Home Cable TV London.